kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa udub Somali TV qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka noqon doona hadii rabbi qadaro saaxiibayaal beesha dhulbahante oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan bilowday maxay yihiin dhaqdhaqaaqyada ay bilowday beesha Mariixaan wararka ugu dambeeyay oodal iyo dagaalada Somaliland iyo sidoo kale beesha Samaroon halka ay ku dambeeyaan waxaan kale oo warkeena ku soo qaadan doonaa Saciid Dani oo go'aan adag oo ka dhan ah beesha dhulbahante qaatay iyo beesha Warsangeli oo dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabay gobolka Sanaag wararkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal warkeena idinku soo gudbin doonaa daawade hadii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe noo saar channelka like iyo share iyo comment waa dhankiina aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya ee warkeena wararka ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanada waqooyi bari Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xaalad adag halkaasi ay ka jirto saacadihii la soo dhaafay waxaa taagnaa culays xoogan oo beesha ay la kulmaysay haddana wararka waxay tilmaamayaan in beesha dhulbahante iyo hadda saraakiisheeda dagaalka isugu yeertay waxaana saacadihii la soo dhaafay socday abaabul aad u xoogan oo ka dhan ah ciidanka maamulka Somaliland ciidamada maamulka Somaliland ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ay ka sameynayeen gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Ceergaabo ayaa waxaa ka jira culays aad u xoogan culayskaana waxaa la tilmaamay inuu noqday mid saameyn fara badan xoogan ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada inkastoo dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya indhaha ay ku hayaan xaaladda ka taagan gobolka Cayn iyadoo sidoo kale warku ay tilmaamayaan in beesha dhulbahante yoolkeedu ugu weyn uu yahay inay dhammaanba ay difaacato maamulkeeda isla markaana ay ka difaacdaan maamulka waqooyi bari ee Somaliland iyo waqooyi bari dagaalkan hadda ka dhex qarxay ayaa u muuqanaya mid hadal hayn badan dhalinaya iyadoona dagaalku uu noqon doono mid faraha la isku saaro isla markaana deegaano muhiim ah lagu kala qabsan doono ciidamada beesha Warsangeli ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay wadeen taageero fara badan oo ay siinayeen ciidamada maamulka Somaliland inkastoo beesha Warsangeli ay ka xuntaay dilka caaqilkooda waxa markaasi ka dambeeyay waxa bilowday kulamo istaba joog ah oo dhaqanka beesha dhulbahante ay yeelanayeen waxaana dhaqanka beesha dhulbahante kulamadooda ay inta badan ay kaga hadlayeen wax waliba sidii ay ku bedeli karaan talaabada ay qaadi doonaan iyo go'aanka ugu weyn ay hadda ay sameyn doonaan beesha dhulbahante ayaa yoolkeeda ugu weyn waxa uu yahay in ay gebi ahaanba xabsiyada magaalooyinka laascaanood iyo deegaanada kale ay gebi ahaanba la adkeeyo isla markaana ciidamadu gebi ahaan laga rabo in ay dagaal toos ah la galaan ciidamada Somaliland ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ay ku doonayaan in waqooyi bari ay ku culaadiyaan dagaalna ay la galaan maamulka Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa saraakiisha maamulkiisa isugu yeeray isagoona u sheegay inay muhiim ay tahay in ay dagaal ay qaadaan dagaalkaasina ay Somaliland ay kaga soo guuleystaan xerada Gooja Cadde waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo lagu doonayo in lagu difaaco maamulka isla markaana tallaabo adag lagu qaado wixii ka dambeeyay Gooja Cadde markii ciidamada Somaliland lagu jibiyay waxay Somaliland hadda ay bilowday inay hoobiyaal ay ku tuurto xarumaha ciidanka maamulka waqooyi bari waxaana hadda maamulka waqooyi bari ay wadaan in ay tallaabo adag ay qaadaan tallaabadaasina yoolkooda ugu weyn uu yahay inay ka guulgaaraan maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa waxa uu hore u sheegay in go'aan adag la qaadanayo go'aankaasina uu noqon doono mid ay isbedel degdeg ah ay ku sameyn doonaan isbedeladaasi ayaana waxay yihiin kuwa lagu doonayay in lagu guulgaaro ciidamada maamulka waqooyi bari labadii maalin ee la soo dhaafay Cabdiraxmaan Ciro ayaa saraakiishiisa kulamo kala duwan la qaadanayay waxaana uu saraakiisha uu kala hadlayay sidii tallaabo adag ee lagu qaadi lahaa dhinaca kale beesha Samaroon ayaa wali waxay wadaa abaabul aad u xoogan iyadoona ay yoolkooda ugu weyn uu yahay inay jabhadooda ay hub fara badan ay helaan jabhadda Oodal State la yiraahdo ayaa waxa ay hadda xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyaa dowladda Djibouti waxaana saacadihii la soo dhaafay jabhaddan soo gaaray hub aad u fara badan hubkaasina waxay ku doonayaan in ay ku weeraraan ciidamada maamulka Somaliland dagaalka ciidamada Somaliland iyo jabhadda Oodal ka dhaxeeyo ayaa waxa uu yahay mid saameyn fara badan dhaliyay iyadoona ay il gaar ah ay lagu wada hayo in xaaladda soo kordhi karto iyo sida talaabooyinka ay qaadi karaan iyo isbedelada ay sameyn karaan jabhadda Oodal iyadoona ciidanka Somaliland maalmihii ugu dambeeyay
iyo noqonayeen kuwa laga guuleysto oo dagaaladu maalmihii ugu dambeeyay ay galeen uu noqday mid hadalhayn badan dhaliya. Inkastoo ciidamada Somaliland ay hadda ay noqonayaan kuwo doonaya in ay aad isbedel wanaagsan ay sameeyaan. Saacadihii la soo dhaafay Saylac waxaa ka jiray xaalad adag iyadoona xaaladaasi ay noqotay mid hadalhayn badan dhalisay. Qof walba ayaana hadal haya, waxaana ka hadlay Faysal Cali Waraabe oo sheegay in marnaba aan loo dulqaadan karin dagaalka Saylac inuu sii socdo, isla markaana isagoo ku colaadinayo in waa Cabdiraxmaan Ciro iyo waxaa hadda ka dhexeeya Faysal Cali Waraabe dagaal aad u xoogan oo soo jireen ah oo ku aadan xaaladaha kala duwan. Dhaqdhaqaaqyada military ee kacdoonka shacbiga ah ayaa ka bilowday deegaanada Awdal State of Soomaalida kadib markii ay dantooda ka dhex arki waayeen maamulka Somaliland. Waxa ay dhisteen bilow 90-meedii waxaana ay hadda ay doonayaan inay askartooda tallaabooyin adag ay qaadaan. Dadka khibrada ah ayaa waxay sheegeen in jabhadan ay noqon karto mid saameyn badan ku yeelanaysa Cabdiraxmaan Cirona waxaa hadda uu aad u doonayaa in uu jabhada Awdal uu ka guuleysto, laakiin jabhadu qudheedu waxay maalinba maalinta ka dambeysay ay sameynaysaa awood cusub ay la soo baxayso. Jabhada Awdal ayaa waxa ay diyaar u yihiin inay Somaliland ay ka baxaan, isla markaana salaadiinta uu ka mid yahay Maxamed Abiib iyo salaadiin kale ay hadda ay sheegeen in ay aad isbedel ay u doonayaan, iyagoona sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay inay tallaabo adag ay qaadaan. Inkastoo Awdal uu ka mid yahay gobolada maamulka Somaliland, haddana hadda Awdal waxa uu noqonayaa meel ka baxsan gebi ahaanba maamulka Somaliland, iyadoona maamulka Somaliland loogu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan. Dhinaca kale, Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inuu duulaan xoogan uu markan uu ku yahay maamulka Waqooyi Bari, iyadoo beesha Warsangeli dhinaceeduna ay yihiin kuwo dagaalka diyaar u ah. Saacadihii la soo dhaafay gobolka Sanaag waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan, waxaana gobolka Sanaag ka jira dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo lagu doonayay in looga hortago ciidamada maamulka Somaliland. Waxaana ciidamada maamulka Somaliland ay yihiin kuwa doonaya in gobolka Sanaag ay qabsadaan. Gobolka Sanaag waxaa ku muransan Somaliland iyo Puntland, waxaana ay si hufan u maamusho galbeedka ama maamulka Waqooyi Bari, waxaana gobolkan uu ka mid yahay gobolada ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya. Deegaanada maamulkaasi ayaa waxaa horey loo sheegay in ay aad isbedelooyin looga doonayo, iyadoo gobolka Sanaag waxa uu qaybsamaa 5 degmo oo kala ah sida degmada Ceel Afweyne, degmada Cergaabo, sidoo kale degmada la yiraahdo Gardaga iyo Badhan iyo Dahar ayaa dhammaantoodba waxaa dega beesha Warsangeli. Badhan markii aan fiirino waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan, waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi ay ka mid tahay sida kuwa saameynta fara badan yeelanaya, iyadoona ciidamada Somaliland maalmihii ugu dambeeyay isku gurayeen magaalada Badhan. Daharna waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland. Ciidamada Puntlandna waxa yoolkooda ugu weyn uu yahay inay Dahar ay difaacdaan, laakiin beesha Warsangeli yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay inay gebi ahaanba ay baabi'iyaan cid kasta oo ka soo horjeeda maamulkooda. Beesha Warsangelidu waxay ballan cad ay ku galeen in ay la dagaalami doonaan maamulka Siciid Cabdulaahi Dani. Gudaha daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV, saaxiibayaal waa dhageytaa daawada. Haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe loo saar janaalka, like iyo share iyo comment waa dhakiina. Waa mahadsantihiin, nabadgelyo.